قبلها ير كي جدار هذا حمر كسب عنا يا دورنا يا في حمر مرهمان في بتلان مرهمان في جبلان مرهمان لودي قبل ولا صوت دورنا الهوية هذا حماسات هذه dadku ay ku qabeen waa lagu fashilmay tiitiin baad hareeraha iska marisay marka waxaan leeyahay meeshan karaamada iskaga baabiinin jaceelka ay dadku ku qabaan adoo lagu qabo magacaada iska joogmaan leeyahay hadii kala karaamada kaaga baabayso doorashada suuragal lama inaad dib dama lagu daro hal cid dooranaysa male xataa laba qof isugu imaan mayso hal uu dooranayaa uu ka tagay wax lagu doorto miyuu ka tagay kama u tagin maalintii la dooran lahaa oo Soomaaliya dhan u heelaneed oo soo noqon lahaa asaga ka hor yimid in la stoorto ku habsuu rabay inuu ka dhigo ku habsadina waa laga diiday Axmed Cabdullaahi marka waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed sidoo ku sharfan yahay waqtigiisu waa soo qaatay Ilaahay ha ku anfacan leena doorasho dambe ee Soomaaliya dambe way ugu dhantahay waay dadkii dooran lahaa ee dadku kursiga ku metelay labadii maamul goboleed oo ka soo jeeday meeluhu ugu daray cunaqabataynta saaray ahayd Puntland iyo Jubbaland meelihii ridina way ahayd cid dooranayso isku haleynaya waay hal arin oo farmaajo xasan sheekh kaga fiicnaa noo sheeg midna kaga ma fiicnaan hal mid kaga ma fiicnaan hal mid oo xasan sheekh ugu fiicnaa oo la sheegi kara ma jirto amni waa lagu dhaamaa bulshada dhaxgalkeeda waa lagu dhaamaa dad yar oo iska sacbinayo oo xudaysan oo youtuber oo mishaar la siiyay sidii askartii markii laga reebo waa la ogaa heerka la maray marka dadkii geegaanka dadku matalay kortu ku matalay oo go'doom galiyay oo siyaasadda ku go'doomiyay oo dhaqaalaha ka go'doomiyay asagoo dhanba magaalada Muqdisho iyo Addis Ababa isku soo reebay hadii uu ninkaas waxa leeyahay inuu siyaasadda Soomaaliya sagana dan ugu ma jirin Soomaalidana dan ugu ma jirin intii uu soo maray Allah u barakaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yeeshay dambe uu ku soo fashilmin hadii uu koleyba oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay inta la soo sharaxi lahaa oo beeshaas laga soo sharaxi lahaa sirdoon hala soo sharaxa ninkaas saami wax qaadan karaya eegto iyo diyaar garowga xisbiyada yaa isleedahay adiga 100% waa ugu rajo badan yahay inuu guuleysto yaa saacid sirdoon ninka la yiraahdo saacid ra'iisul wasaaraha ahaan jiray ninkaas 100% waa la saadaalin karaa xisbigan hadda madaxweynaha ka tirsan yahay waa la saadaalin karaa hadda dad kale oo weyn oo muuqdo oo isleeyahay maanta doorasho u diyaar gareysan waxa kadib la soo dhisay mooyaan ma arkaano laakiin labada xisbiga hadda maalin ugu dhawaaqay dadkiisa markaan dib u raacay oo aan falaqeeyo qoraalka akhriyay iyo xisbiga madaxweynaha hadda oo talada haya labada xisbi baa dadkooda u adeeg yahay tiim ahaan hadii la eego